darwinism theory oo social darwinism ka waxay ku tilmaamaan oo ah inay dad bahalnimadana ka yimi bini'aadamkana aan soo gaadhinayn weliye sida awgeed ma u malaynaysaa yurub iyo maraykan inay ka jiri jireen wax la yidhaahdo xadaa'iq alxayawaan albashari zoo bini'aadam oo la daawado matalan belgium waxay sameeyeen zooga ayaa ku jira 276 koonga u dhashay baa ku jira oo oday iyo salaan iyo carruurtii iyo wixii iyo buulkoodii inta loo dhiso dunida looga soo daawasho tagayo sida xayawaanka loo daawadaa waxay bilaabeen 1897 zooga kii u dambeeyey ama macradkii u dambeeyey waxaa la xidhay 1958 dhulka intii kale way isticmaalsadeen waxaan u sharxayaa ilan qadiyaddeenu falastiin iyo yuhuud bay hayeen waxaan uga socdaa yahuud waxay yidhaahdeen reer yurub aan isdhaafin oo xaggee geyno akhiiran falastiin in la keeno oo dadkii falastiin deganaana kuwii kale siday u galeen inay u galaan bay ku tala galeen marka waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo war miyaan dowladahani naxaynin siday tahay waa maxay dumarkan iyo carruurtan iyo waxaan la laynayo ee haddana ninka weyne fiitooda la dhinac taaganya inaan xabadda laga joojin xaggay bini aadamnimadu martay taa hore aan kuu sheegaya halkay martay ayay ta dambana martay adigu kama gedisanid bini aadamkii la laynayay falastiin kama gedisana kuwa inta cage-ka lagu guro la daawanayay New York 1905 zairiyiin baa ku jiri jiray iyaga iyo daayeer la isku daray baa ku jiray zooga waa inan yar oo xabad daayeerana loo keenay oo dabeetana la wada daawanayo la leeyahay kani waa markii uu daayeernimada soo dhaafay halkuu marayay waa New York reer galbeed aragtidaa ah dawla qaanuuniya oo xuquuq iyo waajibaad ku salaysan oo qoominimo ku salaysan qoominimo rasmiya wixii aan qoomiyaddaa ahayn in meesha laga saaraa yuhuudi waxay isweydiisay markaa maxaa inoo xal ah waa maxay mowqifkeenu jiitooyinkeenna miyaynu ku mintidnaa mise mujtamacaynu dhex gallaa yahuuddii yurub deganayd 3 qaybood bay u qaybsantay qaybta koowaad waa orthodoxiyiin niman ah waxay yidhaahdeen anagu diintaeeda bedeli mayno dhaqankayaga bedeli mayno giitooga yurub ku yaallay ee yuhuuddu leedahay qaanuunka dawladdu kama socon jirin rijaaludiinka qaanuunkooda ka socda qaadi iyagaa oo rijaaludiinka qaadi ay leeyihiin baa jooga lagama ogolo guur madani iyo wixii la mida idaara ahaan qaadigan baa waxa maamula xaaqaamkan baa maamula marka dawlad yaroo dawlad ku dhex nool bay ahayd waxay damceen inay ku mintidaan waase ku adkaatay waxay keensatay in badan la laayo maalin walba meel lagu kaco qayb yuhuudda ka midi waa xaskala fikradda la yidhahdo nimankii qaatay waa liberalis waxay qaateen fikraddii ahayd sidii protestaanka iyo enlightenmentka iyo wixii waa Jewish enlightenment baynu ku sheegi karnaa waxay qaateen nusuusta diiniga in la naqdiyo in laga soo baxo niman waaweyn oo wadaadadooda ka mid ahna hogaaminaya fikradda tajdiidka ee in dadka la dhex galaa waxaa hogaaminayay oo ragga hogaaminaya ka mid ah maalan Musa Mendelson ninka la yidhahdo Musa Mendelson taariikhyahanadooda waxay ku tilmaamaan waa muusihii saddexaad bay yidhaahdaan nebi muuse kii koowaad u ah muusa bnu maymuun kii dhakhtarka salaaxudiin alayuubi ahaan jiray oo ah wadaadadoodii ugu waaweynaa ayaa u ah muusahooda labaad oo isna shaqo badan u qabtay ka saddexaad waa kan muusaha saddexaad bay yidhaahdaan waa nin asliyan belarusiya meelaha u dhashay laakiin jarmalka iyo meelaha kan yimi fikrad aad dadka ha la dhex galo oo aynu ku milanno yurubiyanka buu keenay fikraddaasay aada ugu dadaaleen yuhuudda markaa aqoon-yahankoodii waaweynaa waxay bilaabeen in la yidhaahdo jaamacaadka awal talmuudka iyo wixii ku saabsiisan bay aqoontooda ku sulbadaray waxay yidhahdeen maya aqoonta maadiga aan dhiganno iskuullada aan galno dadka aan wax la qabsanno dawladda aan ka qayb galno mujtamaca aan ka mid noqonno markaa xaraka ballaadhan oo xaskala la yidhaahdo baa u bilaabantay xaskala literally wisdom bay la macnatay ama education
ururkii waa niman udaba ah baa bilaabay nimankaasi waxay wadaan fikrad ah dhaqamadeennii iyo wixeenniina ha la soo nooleeyo dadkana aan dhex gallo aan degno yurub meel laba yaynaan uga bixinay yurubiyan aan noqonno dadka dhex gallo laakiin fikraddaasi aad way u socon weyday in badanoo ka midi filosofadan dambe ee diin la'aanta ka warramaya waxaan oo dhammi yuhuud bay u badan yihiin waa nimankaasi qaatay fikradda cilmaaniga xataa muusa mandelson carruurtiisii yuhuudinimadii wuu ku xejin kari waayo way ka kiristaanoobay qolag saddexaad baa soo baxday oo fikrad saddexaad wadda waa fikraddaynu hadda u soconno markaa inaynu sharaxno waxay yidhaahdeen kumana haysan karna diinteennii meesha yurubiyankana ma dhex geli karno maxaa xala aan hijroonno oo xaggee u hijroonno yurubba waa taa dhul qabsatay aan dhul qabsanno xarakadaasi waa xarakada la yidhahdo sahyuuniyiinta alxaraka sahyuuniya markaa waxay waddaa alxal الثaalith xalkii khaakhaamada ee ahaa giitada aan ku jirro waa laga yimo waxa la yimid liberalkiina waa la aqbali waaye oo nimanka xarakada tan bilaabi doonaa in badanoo ka midi waa nimankii fikradda tajdiidka iyo liberalka qaatay oo la soo tufay ay u aqbali kari waaye mujtamacii maalan ninkan warkiisa idiin sheegayey leon pennisker waa mujtamaca reer bariga rush iyo poland iyo meelaha raggii ku koray buu ka mid yahay waa raggii enlightenmentka qaatay waa raggii lahaa mujtamaca aan dhex gallo 1881kii markii ay dhacday 1871 ilaa 1881 ayaa raashiya iyo yurubta bari yuhuudi joogtay waa la laayay si xun baa loo laayay markaas wuu isbedelay oo bilaabay fikradda aan guuro meesha tan ciidaneen ma aqbalaysa isagu markii hore looyarnimuu bartay laakiin shaqooyinka aan yuhuudda loo ogolayn bay looyarnimadu ka mid ahay markaasuu iska bedelay markaasuu haddana dhakhtar noqday dhakhtarnimadu sidana iminka u ammaanantay waagii hore uma ammaanayni fooxisadeenoo kale ahaayeen dadka dadaweeye ee meelaha jooga therefore dhakhtarnimuu qaatay markii loo diiday shaqadii nimanka kan ninkan aan idiin sheegaya wuxuu bilaabay urur lajnatu odisa la yidhahdo meeshan iminka ku taalla meeshan russianki ay ku dagaalamayaan iyo maxaa la odhan jiray ukraine meel ka mid ah 4,000 buu isugu keenay meelo gaaruu u sameeyey akhiiran iyagiina waa la laayay fikraddaas sahyuuniyadda la yidhaahdaa soo ifbaxday oo ah in dadkan la raro oo loo raro dhulka loo aamino ay degaan yaa taageeraya fikraddan nimankii ay asalba ka timi waxaa jira koox ingiriis u badan oo restoration waxay yidhaahdaan aaminsanaa alistirjaac caqiidat alistirjaac oo caqiido odhanaysa ciise soo degi maayo haddii aan jerusalem inta la qabto yuhuud la geeyo oo heekalkii saddexaad laga dhiso aanay meel yuhuudeed noqonin ciise soo degi maayo marka si ciise aynu u dedejinno ilaahay inuu yimaado iyagu sida sheeganayaan inuu dunida ku soo noqdo oo alfiya ثالثة ay u bilaabato kunka sanadooda dambe nabadda lagu badhaari doono dunidu si ay u bilaabanto وين جورسلم يهود لدجيا نمن كريستيان قبا بجرا وليبا فكرتها waxaa qaatay sida nidaam shabiska iyo rag kale ay tilmaamayaan elite-kii waddanka Ingiriis saasi daraadeed baynu in badan arki doonaa dadka meesha tan u dagaalamayay dejinayay inay elite-kii ama nukhba mujtamaca dadkii hogaaminaya Ingiriiska ahaynayeen qaarna diin ahaan bay u qaateen qaarna nadariya isticmaariya daraadeed bay u qaateen ولذلك رئيس الوزراء هذا جوجا أحمقا بنيامين نتنياهو أو أفرديا United Nations كإسرائيل أفرديا 1985 أي خطبة كآخرية الأمم المتحدة وحلية هي لقد كان هناك شوق قديم في تقاليدنا اليهودية للعودة إلى أرض إسرائيل وهذا الحلم
يراودنا منذ 2000 عاما تفجر من خلال المسيحيين الصهيونيين بولي حجري بولي كالقعب وين هدانو يهودنا هيان وقبني دولكي إسرائيل لكن رياضة يضاسي لابا كنو سندود بانو قبني بولي وحسد اللاعيون نبكا لغي كريستان كي صهيوني هابولي وبنيامين نتياهو ayaa wuxuu leeyahay kiristankii sahyuuniga ahaa ayaa noo suurtageliyey inaanu xilmigaasi dhab noo noqdo ma yuhuud jacayl ay u samaynaya kuwani maya waxaabay rumaysan yihiin kuwaasi la yuhuudda ha la siiyo qudus waxay rumaysan yihiin qudus marka la siiyo ee ciise uu soo dego yuhuudday rumeeyo odhan doonaa dabeetana way beeninayaan boqol iyo waxoogaa boqol iyo 70 boqol iyo dhowr iyo 40 waxaasaa la sheega intaa mooyaane intaasaa rumaynaysa buu leeyahay yuhuudda inta ka soo hadho dhan ciise dibi doona bay leeyihiin marka meeshii lagu layn lahaa isugu geeya bay rumaysan yihiin naxariis ayaa la baahan halka hal isugu geeya bay qabaan su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay awsaata isticmaariga ahayd ee reer galbeed ee cilmaaniga ahayd siiba reer galbeed dhammaantii marka la isku wada daro yuhuud xal waxay u arkeen inay iska saaraan weliba waddan aan yurub hayn loo saaro maalan markii dagaalladu kaga bilaabmeen yurubta bari yuhuudda qarniga 19aad dabayaaqadiisiba aad loo laayay galbeedkay u hijroodeen maraykan ingiriis dhammaantood way ka mamnuuceen waddankooda inay soo galaan waxaa lagu cadaadiyey inay qabtaan xagga iyo falastiin inay qabtaan waa loo diiday waxaan filaya inuu balfour laftiisa yahay 1905 ninkii soo saaray immigration looga ingiriiska ka mamnuucaya inay yuhuuddu soo gasho waddanka iyadoo la rabo in la geeyo meesha aynu sheegayno ninka sahyuuniyadda aasaasay siyaasigee dambe sahyuuniyadda fikrad bay ahayd muddo soo jirtay kristana ka soo dhex jirtay aqoon-yahanadii yuhuudeedna ka soo dhex jirtay ninkana aasaasay mu'asisa xaqiiqiga ah ee theodor herzl la yidhaahdo theodor herzl wuxuu ahaa nin maxaa la yidhaahdaa wariye ah journalist ah ninkan fikraddan inuu aasaaso maxaa ku kalifay weliba wuxuu ahaa kuwa aaminsan alindimaajka in la isku darsamo kuwa aaminsan ayuu ka mid ahaa oo haddaanu aaminsanaa indimaajka maxaa keenay inuu aasaaso fikraddiisa tan xaggay ka timi waxaa dhacday 1894 baan u malaynayaa ayaa drafisxa dhacdo la yidhaahdaa dhacday dhacdada tani waxay ku saabsan tahay nin alfred drivers la yidhaahdo oo kabtana ayaa jiray oo yahuudiya oo ciidanka faransiiska ka tirsan faransiis iyo jarmal baa isdilay dabeetana jarmal baa faransiis baa laba magaalaan filaya laga qabsaday waana la soo jebiyey faransiiskii dabeetana dadkii yuhuudda necbaabaa waxay yidhaahdeen kabtankaa yuhuudigaa baa sirteennii faafiyey ee waa in ninkaa la maxkamadeeyaa la dilaa ninkii baa la soo qabtay maxkamad baa la saaray kabtankan yuhuudigaa waxay tilmaamayaan taarikhyahanadu in la dulminayay oo kabashulfidaa un laga dhigtay maxkamaddaasi ayaa herzl looga soo diray meeshiisii la odhan jiray bishteriya inuu soo tabiyo warkeeda wuxuu ahaa wariye kayskaasi maxkamadda ka socda kayskaasi kays caanu ahaa 10 sannadood buu socday dhowr goor baa la xukumay aakhirkii markii hore waa dilya waxbay ku qaadeen darajaday ka rifeen adareel aakhirkii inay beentaa la ogaaday oo waa la soo daayay laakiin theodor herzl ninkan la yidhaahdo wariyuu ahaa dhacdadaasi gudbinaya dabeetana wuxuu caqiidaystay dhacdadaasi waxay ku kaliftay inuu rumeeyo yurub xataa haddaynu u dhimanno oo u dagaalanno haddaynu yuhuud nahay inaanay aqbalaynin
وهلكي إنك عربية اللي جشيء لو خرجت من جلدك لما أعرفك بين هذا جاحد أي بوجيسي محل أورنجري البخلاء أيوه حكوسه قصة سأرورينية نين مروزي يويتو حاجة كيمي عراقي يمي دبتنا نين عراقي حوق سود ويو وحبة سيء أو كيري مرو نصابه سيف يعني نقول مرو نصابه مو بوغا نين بري دمان كي عراقي يعني بكون عضيبة ليلو مروت تجي نكي مروزي جاي وصلاة وهو قرر يروت تجي مركزو كلا فري واي مركزو يدور ملع عوامدني وحنبان وهو قرر وسكدي مركزو فري كري واي مركزو يسير ملع 5 تانية مريحة ويبانو قرر نيلين وحول بقول لي بيدا مركي تبوكي بخيل كهيلي لو خرجت من جلدك لما أعرف أدا دير كسكسي بتناكو قرر معي وهاي هذا في أن الروح قاتل فكرة حتى هدين دير كسكسي منه يربينا قرنيش هدين أمي من نقول دجالنا وحول باين وصل بينه لين ما قرنايو وحيوني مركا حلكو وين اليوروب كجورة حلكو وين اليوروب كجورة وقري جوجل إلى هذا دولة اليهود أو كجور رمى يا مركاسي حل كاسينو يهي يوروب اللي كجورة شركة كواد السهيونية ده يكون سداد بقول يتضبي السجاشة كيلو قبطي مقالة بازل سويسرلاند كمان شركة سوى حكا سوى قيب قليبا لينها إلا لبا بقول أو إرجو أو بدن يوروبيان كي غير بري يهودي بري أو بدن يهود علمانيين أما اشتراكيين أما وحسين لكن وحكا لو كلا سوى قيب قلي لبا نينو كريستانو واوي مدي لبا نينو كريستان كوانو مسيحيين مدي وهنري دونات هنري دونات وانيكي أساسي بهاشان ريد كروس كلا ريد كروس كلا مرمر إسانيكي سبيلي ويان هنري دونات وانين سهيونية والرقا سيلا هاي فلسطين هلا دجيو يهود وحكا لو شركة كسو قيب قلي سجنا ويليام هيشلر وداد إنجليزا وسفارة إنجليز كوكولي هاي فيانا جوجا أو ودادكي ثيودر هرتسل هي سياسيين تاع غير قلبك ثيودر نوريو يربوها مجارين نينكي اسكو حدايا حلقة الوصل أو نهضي ويا لبدا نبا كلا سو قيب يهودي عام كاهي فكرة دموليكم قناع سنة oo waxay siraadeen shirkooda tan markii hore Munich u qabta dabeetana yahuudda diiday sida ogeed baa meesha tan loogu qabtay yahuuddu dad yagoodii tirada badnaa waxay u arkayeen kow inay diinta khilaafsan tahay oo inaynu Falastiin ku noqono isagaan Messiah soo bixin diinta ka hortay bay leeyihiin laba waxaynu burinay qaanuunkii Ilaahay inuu firdiyay bay leeyihiin sina qaanuun Ilaahay uu hayo waa burinayna marka wadaadadu waa ka soo horjeeday saddex meesha dawladda Cuthmaaniya baa haysata iyo carabta deganay leeynooma ogolay inaynu degno marka yahuuddu caam ahaan fikradda way ka soo horjeeday laakiin nimanka reer galbeedka ah siiba qoladaasi siyaasiyiinta ah baa riixaysay fikraddan yahuud Yurub laga saaro yahuudin Yurub laga saaro waayo هذا سلفتي سماه المتدين أحد هذا أنا عرورتي سم حيد هذا بدنا وكجالو بي بدنا أنتوا شيء بيستلي إن أنا سوق حرب وكجشي مركا غير يهودي نمذا حتى يستسقوا ما هي لكن قوم النمذا ماشى اللغمان نولان كربا يسقط راعي يهودي واحد قاطع مركز أما سهيونين تو واحد قاطع فكرة ده إن يوروب لقبحه ودنين لا يشوف لغنا لا سمايستاين سكو أفكارنا ويمكن أفكر كوها من لما أفكر لغة إذا كده حيسا وإنه سكو أفكارنا إن لا سمايو لغة دودا على زاير من اللي هذا ستيريو في الأيام والشيء كنسقال بقولي الله باطنكي أيو حوجا ديكشنري سماية كسو أورورية أفكر كله حوجا عبرية هوريك تكجيرنا إن بدنا في عربي هرتا أنت عايدة أيوة في عربي غير يهودا أنا لا لي تعايدة وحوجا قاطعي عرفتي مالها شفتي وحكر
dictionary buu sameeyay iyo in luqada dib loo nooleeyo waxay kaloo qaateen xaggaynu degnaa waayo nimankan sahyuuniyada koowaad ee wada mutadayiniin maaha marka aaraa badan baa soo baxday aaraada waxaa ka mid ahayd argentiin in la dego waxaa ka mid ahayd bay yidhahdaan rushiya qaybo ka mida in la dego waxaa ka mid ahayd in meel ay ugandha ku sheegeen si aan ugandha ahayn in la dego waxaa ka mid ah in libiya la dego meelo badan laakiin masiixiyada sahyuuniga ah iyadu ee maalkana bixinaysa siyaasaddana maamulaysa iyagu waxay ku cadaadinayeen meelaan falastiin ahayn inaanay noqonin dhacdooyinkaasi waa soo socdeen 1897kaasi ikhtiraxaadkaa la soo bandhigay waxaasoo dhan baa ku jiray 1903gii mu'tamarkii u dambeeyey uu hersel ka qayb galo waayo 1904kii buu dhintayba ingiriiska nin ka mida wasiirkii mustacmaraadka ingiriiska wuxuu soo bandhigay 5,000 mayl oo square ah ama 13 kilomitir oo square ah oo hadba ma uu la yidhaahdo ugandhay markaa ka tirsaneed hadda laakiin kenya ka tirsan gobol kenya ka tirsan hadda weeyaan meel kenya ka mid ah oo ma uu la yidhaahdo qaabatu ma waa meel u dhow ayuu ingiriisku idin siinayaa soo guura halkaa dega shirkii loo fadhiyey 295 ka mid ah acdaadii shirka isku timi baa u codaysay in halkaa kenya la dego 177 baa diiday go-aanku wuxuu noqday in la dego meesha tan dabeetana wafdaa la soo diray ah inay dhulka soo eegaan iyo siduu yahay waxaa la yidhi dhulkaa waanu libaax badan yahay niman masaai la yidhaahdo oo dagaalyahanina waa degan yihin meelaynu degi karna maahay waftigii ku soo celiyey dib baa looga noqday fikraddaa haddana طبيب يهودي بحرين دقنان جري والراشيا نسل كيسو ها هيا هذانا 1917 كي وحو صوبر دقي او انجليز كو صوبر دقي ان بحرين يا احصاء يا انت سعودي يا انت الله جرو ولا دجي يهودي فكرت واي ما كان هو قوميين ربا دول ددك دقن انت حاقان اي دقان الدين يباب كاس مركا مبورا يوروب oo dhan in fikradda in la saaro way ka fikirayeen mesela Jarmalka raashii saddexaad waxay qaateen Jarmalka oo kale madgashkar meeshan la yiraahdo madgashkar in yuhuud la dejiyo qasab lagu dejiyo waa marka mid ah Jarmalka qaadato in yuhuud la xaaqo oo qasab lagu dejiyo madgashkar la dejiyo afkaartaasi galbeedka aad bay u dhexmartay صاد ضدوبه حلالة يوروب يهود إن لا خارو وودن كيوروب لا خارو وودن دبديدو كلل الدجيو أما اللاتين أمريكا هالنقط أما إيشيا هالنقط أما أفريقيا هالنقط إن تبنا دور لقت المامي قرم تاني مكاو راشيا كو قبصدي مربع لقون ديين للدجيو meeshay doontaba ha noqotay yuhuud in meel lagu ururiyo laakiin waxaa soo xoog badanaysa fikradda odhanaysa war falastiin baa ugu munaasabsan fikradda odhanaysa falastiin baa ugu munaasabsan oo kow sabab diiniya loo masiixiya nimankii diinta masiixiga ee restorationka aaminsanaa ay aaminsan yihiin oo laba sabab ijtimaaciya labay leeyihiinoo waxay leeyihiin yurub faa'id bashariya baa jira casriyada waxay odhan jireen dadka aynugu batay ee weynaynu dabadda qabadsiinaa dowla qowmiya ma qaadi karta bay leeyihin faa'id bashariga kan waxay kaloo rumaysnaayeen asbaab iqtisaadiya daraaddeed oo waxay u arkayeen yurubta bari yuhuudda ka timi inaanay qaadi karin ingiriis iyo maraykan iyo kuwanay dhaqaale ahaan daraaddeed saa daraaddeed inay isdhaafiyaan أسبابها اقتصادية وحكم إذا مثل عبد الوهاب المسيري لكي لورنجري أيها وحليها إسرائيل مريكا وحي أطهي حاملة الطائرات حليا مريكا هدان إسرائيل جري وحقوق أصبنان لها 5 مركب
oo xaamilaatu طaa'ira ah oo mid waliba konton mid waliba 10 bilyan uu ku baxayo inuu Mediterranean Sea biyo intaasi dejiyo buu leeyahay laakiin waxa uga qiimo jabnaatay buu leeyahay intuu yuhuud meesha dejiyo inuu 10 bilyan iyaga siiya hal xaamila طaa'ira ay la qiimo yihiin waxa uu siinayaa buu leeyahay saa daraaddeed inuu xaamilatu طaa'iraat bay u tahay buu tilmaamayaa yuhuud bay u tahay dee madaxweynaha hadda joogee Biden isagoo senator u khudbadeeyey markaasu wuxuu yidhi 3 milyan aynu ku invest garaysanay Israa'iil 3 milyan oo ka fiican oo la invest garaysto Maraykan weligiiba ma invest garayn buu leeyahay shirkad buu ka dhigay babaasho inay tahay meel dhaqaale la gelinayo 3 milyan aynu Israa'iil gelinay buu leeyahay 3 milyan oo ka fiican oo aynu investment aynu maalgelin ku samaynay weligeed ma jirta buu leeyahay idan Israa'iil sabab diineed iyo sabab dhaqaale iyo sabab isticmaariya intaba ولذلك بقى مرaykan intii uu jiray dhowr iyo 40 veto ayuu Israa'iil iyo Falastiin dartood u riday isagoo ku taageeraya Israa'iil waxa la yiraahdaa 2020 ilaa 2024 afarta sanadood gudahood 12 veto oo Falastiin ka soo horjeedo riday 4 years 12 veto oo laga soo horjeedo Falastiin buu riday إذن هو دولة استعمارية فلسطين وحوجتها ولذلك عبد الله النفيسي خبير كان إلى ذا وحليه رير قلبيت بويري عالم الإسلام مركا ينوي أجنبه لي شرن شري للصومرين شرن شرده كواد بويري وحويا كسر الإعدام وين الطمين ومدافيع يهوب الله ينوي قراعي هدو فرنسيسي هي هدو هولنديسي هي هدو طلياني هي hadduu Bariitaani yahay hadduu Jarmal yahay dhammaantood waxay hub iyo ciidan haysteen bay ku garaaceen buu leeyahay marka ina garaaceenna maxaddada labaad bay u gudbeen oo ah buu yidhi maxaddatu taqsiim wa tajzi'a sidii neef xoolaa inay inoo googoostaan oo ina qaybsadaan sida cunnada laynoo qaybsado oo quruska laynaga riday u gudbeen maxaddada saddexaad buu leeyahay waxay bilaabeen taqriib fi التعليم والإعلام والاقتصاد والسياسة صناعة النخب يعني ذاتك تلضى ينوها ينو سميان أو تعليمتا إعلامك اقتصادك نقالها هي حكامتي أن الدنبين يبغوا ينو تببرين محطة أفراد دولي والإلحاق الاقتصادي نقاله أن دمانتي وحي كحر نقاله ونقالها عالم الإسلام ونبي وحكم عياوية هي مال قليل ويا هي نقالها غير قلباتك محطة أفراد نبولي وإسرائيل سمين تيدا والدولة الوظيفية والله قلت لك يقول لي أفرطان محطة هرين أنا مرنا بدوك إذا قلت لي شغل إسرائيل الله بسم أفرتي شقاء وقبني استعمار تي هيد مدافعك وقراعسك تي هيد نقالها تي هيد تغريب أفرتي شقاء وقبني إسرائيل ما هو يسمى لي إسرائيل ما كان وحلون بيسيقول لي إني إلى لسو وضعي والسمايستين الغربات إنه عالم الإسلامي مرة بيسكي بدلي مثلا تجزئة أنا شيرين واحد كده برنامج إلى هذان ينون بلاي واحد كده نلا إلى هذا أوديت ينون ونن ورينا هانشري لتليه أريال شامير لتليه سوية يودت بلانكو 1981 أرتيكل وقرأي مركي دمبر الناتو وآخريني أرتيكل كاسمحو شيرية وأرتيكل له عالم الإسلامي هذا والله باطني يسدح الدولة دول كان عربية وشيرية والله باطني يسدح الدولة دول لكن واحد كفي عين اللي هي فرطن لقد يقولوا وأركتني يهودي يسوي شيء وناتو شرحيه ومركي دمان الله يدعو وأفكارته بشقوق عن عصنابة المامانين كاملة إذا وحلية هي وحلور نسي إسرائيل وإن إلى لسه أفرتا قضبة كله استعمار وصمستي أيها الأحبة أحكوا فيلا دور قول القرآن تلمام تشرشل ووزير المستعمرات كهراء إنجليزكا ورئيس الوزراء هراء إنجليزكا تشرشل وزير المستعمرات كرئيس الوزراء النقضي وحلية ينبغي
أن تغدو فلسطين يهودية تماماً مثل ما هي إنجلترا إنجليزية. إنجليز أولية، لكن عربت مركو لها اللي يوحكلوا شيء مركي اللي يدي محد وحاول شيء سنة وحيد عربت وسيدة إيجو كلابو يلو مركات حوقها رات الضبع أد بكل لفلفية وشرط الوريس سيدة إذا الله لنا ما بيدا داد هرات كوبا دي صوت لفلف كوبا دي نيام ولي أوجي سجى شرط كا أوجي أيها 1841 سنة وحقري وراء قدر اليوم يهودي مجلس يهودي إنجليزي كي هيستوى ولاية إن استعادة اليهود لوجودهم كشعب في فلسطين أمر ميسور إذا توافر عاملان إن شعب يهودي كعلنا فلسطين يوضن كودا النقطة وأعرف ضد ولاية لما وحنا بينه بهني لبدا وحوا محي يهودينا سوقا عسان يدول كغير قلبين إن يتاجر موتشيان لبدا وما يبهني بيه أخلا إنه بهني ما شفته إن ماشي الوعي إذا دول كغربي قاهي قديما وحديثا نسو صادر ألمانيا يرمني فرانسيسكا إنجليزكا مثلا نابليون بونابرت وأنكي كواد صور عصر حديث كعالم الإسلامي وأنكي كل واقع يسوون فلسطين إلا السيور والله قسيو إسرائيل إلا دتشية فلسطين وعدوا بالفور هرو سمية يسوي جرم القصاص وكذا يعني وقت بدن وما هنا نقواش وده صار نقليه لكن واحد لاني وفكرة ده يسكون رأسي من كير القلبادي ووينا يا سياسيين تودونا إلا يلا جسوا قالوا 1917 محل عاي 1917 إنجليز كوزير الخارجية سي أيا وراقه قري قضي مال قبين كهاي يهود إنجليز كحكومية لورد روثشيلد وراق ضو قري وحووش يجي يسعدني أحن كفر أحسن هيقولي إن كوسو غارسيو أنا جو بغرك كوكيلة سيدا أن أجعل يهودية صهيونية إيوه حكومة إنجليز وين يربطه وطن قومي إن لو سمي شعب يهودية وفلسطين لو سمي إذا هديت نابليون تصريحي سي قيصر كي ألمانيا وهرتسل مركي ورادين ونكي الله صادرين وكلاه الله بغر كي عثمانيين يا عبد الحميد نكي الله هدي وياه مركا بغرتوية دي هيستي جرمال إيتي إنجليزكا إيتا فرانسيسكا إنتو بوحي إليه فلسطين هل الدتشيو يهود مركا ما أنت هنا إنه الله يابنا ما دولة دي رهب قلبيدا حقوق البني آدم كي وحن إلالني وحن ميانا إيقا كياني إيقا أنا كوهيا إيقا أنا ربيني شوفتو سيدا وغيد وحن سو كوبي دونا تاريخ دا دنبا أنك ورميو آدم سو كوبي إنجليزكو صدح بلنبو قلق أما قاركو ديكلاريشن هو ده وبيامين معها وعد لكن دتك وعد بيكون الماما صدح وعد بو سمي بلفور ديكلاريشن وبلفور ديكلاريشن كاسي واحد هذا النسخة دي أصلها أفعبري بالو بقري حانا قري نكي لورنشري ناحوم سوكولوف ويهودي راشيا يدنكا كسو هجروتي إن نسكا سيلو قرو نسكا عبريكا ومكان كل واقع دونو قرال كيسنا واحد رجال يبي هذا حايم ويزمان وبغر ومدحويني كوانا إسرائيل لكن أنت أنا مدحوينا نقول حايم ويزمان وانن كميستا وانن كيسو ساري أستو كبهاشان ليلانو دقالكي كوانا الدنيا وإنجليزكو قالي وانكي كعاوية إنجليزكو مدافع ديسيا قنتاليهيسا وحي بارود النقل هي اللي وصمين لها بهاشا تبع الله أديكسن marka wuxuu noqday nin boqortooyada iyo dawladda Ingiriis aad uga agdhow
maadaama uu dagaalkii koowaad raad weyn uu ku leeyahay inventionkiisii uu sameeyey waxaa loo ballan qaaday markaa wacdiga kale Balfour Declaration oo sheegaya in nimankaa meeshaa la dejiyo laakiin ingiriisku khabiisnimadiisa waxaa ka mid ah saddex heshiis oo midba mid burinaya buu galay wacdi Balfour yuhuud buu u qaaday Sykes-Picotna wuxuu u qaaday xulafadiisii Sykes-Picot waxa weeyaan dagaalkii labaad ee dunidu markii uu bilaabmay ayaa waxay isu yimi xulafada dadkii ahaa waa Russia iyo Faransiiska iyo Ingiriiska negotiation muddo socday 1915kii buu bilaabmay ilaa 1916 November ilaa iyo May buu socday ayay ku heshiiyeen marka ay jabiyaan dawlad Cuthmaaniya caalamul islaami siday u qaybsanayaan baa laga heshiinay heshiiskaasi wuxuu qorayaa qayb Masar iyo qaybta in Ingiriiska loo daayo Ciraaq iyo qaybo kaloo ka tirsanna Ingiriisku inuu maamul gaarsiiyo adigu in Ingiriiska loo daayo Suuriya iyo Lebanon iyo Urdun iyo inaan si raacsan oo Turkiga qaybtiisa hoose ka tirsanna in Faransiiska la siiyo Russian-kana Istanbul iyo Armenia iyo intaan la isugu daro heshiiskaas la wada galay laakiin dagaalkii labaad ee dunida socda heshiisku qarsoodu ahaa markaa dunida cidimo ogeyn dagaalkii koowaad ee dunida weli socda ayaa Russia tawradii ka dhalatay Bolshevik ahayd 1917kii dabeetana shuuciyiintii baa heshiiskii soo saaray Faransiis iyo Ingiriis baa isku kacay markaa wuxuu kaloo galay heshiis saddexaad oo ah Sharif Xuseenkii haystay Xijaaz waxaa maamuleysay dawladda Cuthmaaniya dabeetana waxay u magacowday Sharif Xuseenkii haystay Xijaaz ayuu Ingiriiska ninkii uu fadhiyay almanduubi Saami Qaahira u fadhiya ayaa la wada hadlay waxaa lagu heshiiyey in dawladda Cuthmaaniya lagu wada kaco Sharifku inuu carabta dagaal geliyo thawra al-kubra in la sameeyo Sharifkana inay dawladda Ingiriis boqor ka dhigi doonto caalamka carbeed oo dhan siiba Shaam iyo Ciraaq iyo Xijaaz iyo inta in la isugu dari doono oo khilaafo carbeed loo sameyn doono saddexdaa ballan ee Ingiriisku uu galay kii yuhuuddu buu fuliyey labadii kalena wuu buriyey kii Sharifka waa buriyey oo Sharifku de isagoo masaafiris buu ugu dirayba markii dambe Qubrus dawooyinka waxay kala riday Sharifka markii dambe waxa loogu diray masaafiris Qubrus markii laftu ka sii baxaysay baa culimada keena ugu dhintay Faransiiskana wuu khiyaameeyey oo ciidamo wato Sharifku inuu dhalay ayuu yiri Suuriya inta qabsafaysa tii loo oran jiray dabeetana Faransiiska ogaaday Faransiisku dagaal ku soo qaaday meeshii uu dib uga qabsaday dabeetana wuxuu geeyay Ingiriisku haddana Faysalkii Sharifku dhalay Ciraaq haysta buu ku yiri Ciraaq uu geeyay ninka la yiraahdo Cabdillaahi oo inankii labaad uu Sharifku dhalayna waddan aan jirin buu siiyay yana waddan baa شرق الأردن نهر الأردن بريس أيوة يبقى وضعنا ولين التاريخ هرا لو ما مقال وضع الله إلى الأردن يشرق الأردن تونا مجرد روح الأردن الله إلى ذلك شرق الأردن بعد أنا وضع قوي أنها لا سافر جميل أبي هذول مسافر فرانسيسكو مركو تاو قاعدين فيصل في دمشق جايين تيبا وقف صدي وحسكو صاقف صدي لا لبنان إذا إنجليزكو سدح ليه هشيشة وقالي وحنقو فوليي كي يهودا labadii kalamana oo cagsi ku ahaana labadaba wuu buriyey markay 1915kii marayso ayaa Ingiriisku wuxuu soo diray nin Yahuudiyo Ingiriis ah oo la yiraahdo Herbert Samuel 1915kii waxa lagu yiri bal in Falastiin dawlad Yahuudeed laga samayn karo orod soo ilaahay wuu yimi wuu noqday meesha tan dadka degan waa 1915kii
boqolkiiba 4 waa Falastiin marka ma suurtagal ah dawlad Yahuudeed in laga sameeyo Ingiriisku marka saddex dagaal buu la galay dawladda Uthmaaniya meesha nimka Gaza la yiraahdo saddex dagaal ku galeen dabeetana waa la jabiyay meeshii buu qabsaday waddanadii Carabeed markay qabsadeen xulafadu waa shireen waxa la isweydiiyay say inuu galaa waxa la yidhi qaybo waa waddanna iska dhisan mu'assasaad iyo xukaam iyo xoogaa baynu u samaynaynaa intidaab raqam 1 baa la yidhaahdaa qaybtaasi qaybana iyagu waddanna jira maaha waa soo dhisaynaa qaybay u qaybiyeen waddannadan Carabeed ee meelahaas oo dhan ka dhisnaa waxay yidhaahdeen iyagu waa raqam 1 raqam 1 marka la yidhaahdo maxaa looga jeedaa waxaa la leeyahay tamthiil daakhili ah waynu waddanku yeeshaa baarlamaan iyo madax iyo kala dambeyn laakiin manduub saamiyo ingiriisina waynu ka sii sarreeyaa waxa loo joogaa masar boqor baa haystay sidaas ay u dhisnay dawladdii baarlamaankii laakiin manduub saamiya ayaa jooga ciraaq sidoo kale kuwa kale suuriya sidoo meelaha kale oo dhan saasaa laga dhisay falastiin mooyaane falastiin markii hore waxay ku heshiiyeen iyaga iyo faransiisku in ay meel ummadoo dhan ka dhaxaysa noqon karto laakiin falastiin markuu qabsaday faransiisna wax kama siinin tamthiilla wuu u diiday oo yaa maamulaya markaa 1920giiba wuxuu soo diray yahuudiga inuu hore u tilmaamnay uu marka hore soo diray Herbert Samuel ayuu 1920 u soo diray manduub saamiya falastiin inuu noqdo waa yahuudi sahyuuniya nimankii meesha qabay mid ka mid uu yidhaahdo xukum manduubkan saamiga ahi muddo yar gudaheed wuxuu soo saaray 100 qaanuun oo dhulka ku saabsan bay yidhaahdaan wuxuu sameeyey kayaan yahuudi oo mustaqila oo leh nidaam bangi nidaam tacliimeed nidaam enerjiya taaqo nidaam dhismeed nidaam mustashfiyaat nidaam baarlamiya ciidamo intaasoo u gaara yahuudi u sameeyey falastiintana waxaa la yidhi idinku waxba ma yeelanaysaan manduubka saamiga ah baa dhammaantiin hoos tegaysaa qawaaniintuu soo saaray dhulku dee sida dhulkeennanoo kaluu iska ahaa meelaha magaalooyinkana la degan yahay dhulla uu bannaan iska yahay oo ninkii doona dee beerto kolba wuxuu keenay war odhanaya wixii dhul bannaan dawladdaa leh wixii dhul la leeyahayna cashuur dheeraadaa bixinaysaa wixii cashuurta bixin waayana dawladdaa qaadanaysaa dabeetana dad badan oo aan waddankaba deganayna dabadiisa ilaa dhulka islaamigu uu isku xidhnaa markaa dadka dhulkan leh qaybo badan oo ka midi lebnaan iyo dimashq iyo istanbul iyo dhulkaasay deganaayeen dhulalkoodii buu la wareegay dhul kasta uu la wareego wuxuu ku wareejiyaa ururada yahuuddu dib u siiyaa oo lacagta ka qaada wuxuu yidhi luqada cibriga ahi luqadii ay samaysteen ee luqa cibriya ah waa official language wuxuu yidhi dadka cibriyiintu waa dad ka tiro badantiin markaa iyaga hubka waa loo ogoliyey dawladdaana training siinaysa waxay bilaabeen markaa in yahuudda la train gareeyo la tababaro oo dawladda ingiriis ay tababarto dhismaa lagu waday yahuudi meesha soo degaysay in la dhiso falastiinta meesha deganna in dhaqaale ahaan siyaasad ahaan caskari ahaan si walba in loo gumeeyo maalan moosaadka iminka u jira yahuudda aasaaskiisii 1919 baa la sameeyey iyadoo ingiriisku meesha joogaa la sameeyey yani 30 sano dowladnimadooda ka hor baa la sameeyey ciidanka maanta ay leeyihiin israa'iil bilowgiisii 1909 baa la bilaabay haaga waxaa laga bilaabay jabhado la tababarayo aqoon ahaan si uu dhiso aljaamica alcibriya qudus 1925 baa la furay warshadaha ay leeyihiin ay samaysteen 1935 bay wax dhoofinayeen waqtiga aynu caynkaa leenahay falastiin qunsulkii ingiriiska u fadhiyi jiray dowladda cuthmaaniya waqtigeedii 19th century ayaa dowladda ingiriis waxay tidhi yahuudda waddanka degan oo dhan soo tirakoob buu sameeyey 9665 meelaha 10,000 wax ka yar bay noqdeen
yuhuudda falastiin oo dhan degani waa taqriir ingiriisku qoray inay wakhtigaasi 1838 inay ahaayeen 9,690 qof inay ahaayeen 1914 sidii hijraadka yuhuudda u imanayay waxay soo gaadheen inay 8% yuhuudda noqoto 2.9 ay falastiin yihiin markaynu eegno 1919 ilaa 1948 afar goor baa kolba la qiimeeyey yuhuudda imanaysa ingiriiska ogolaanaya markii hore wuxuu ogolaaday sanad kasta 7,000 oo yuhuudi inay soo degaan mar labaadkii wuxuu ogolaaday sanad kasta 24,600 oo yuhuudi inay soo degaan mar saddexaadkii wuxuu ogolaaday 57,100 yuhuudi sanad walba inay soo degaan mar afraadkii wuxuu ogolaaday 34,900 oo yuhuudi inay soo degaan هذا واحد يستوضأ يرى إنتان لك والله إذا سنة دول بوحي سودة يشان يصدقون ضد أعصب مركا واحد بلاد مي ثورات في ضدك فلسطين تي ودك دقني سيدان السيما هبيد هذه وحوه الرئيسي أما ثورات يوجوه الرئي وحكم إذا كنت سقال بغلي قابي الله تنكي ثورة يافا مقالة يافا الله يدهبه مركي كعظم في حوق بطي ayaa ingiriisku waa shaytaan wuxuu yidhi guddi committee baa la saaraya arrinka baadha committee baa la soo diray waa la baadhay jeertalkii inoogay wuxuu sheegayey ayaa isna la soo diray wasiira waa busteeyey dadkii wuu dejiyey waqti yar kadib haddana 1929 baa waxaa bilaabatay thawratulburaaq thawro ku saabsan meeshan buraaqa la yidhaahdee derbigan ay madaxa ku garaacaan ayaa la isku qabtay dabeetana waxay damceen inay derbiga qaataan muslimiintiina waa diiday dhowr boqol oo yuhuudaa baa dhimatay dagaal baa dhacay ingiriis baa lagu kacay thawro aad u xoog badan baa dhacday kadib baa waxaa la yidhi guddi ha la soo saaro guddi aan ingiriisku ku jirin oo caalamiya loo diray guddiga caalamiga ahayd markay dhaydhaysay waxay yidhaahdeen meeshan waa mulki muslimiintu leedahay laakiin yuhuudda ha loo ogolaado inay saacado go'an waqti go'an ku tukadaan waxna kama dhisan karaan dhowr iyo soddonkiiba markii la soo gaadhay tiradii yuhuuddu waxay ku soo dhawaatay 30% dadka waddanka degan 1936 baa waxaa dhacay thawradii ugu ballaadhnayd ee shacabku uu sameeyo oo 3 sannadood oo isku xigta socotay thawra 36 ilaa 39 socotay thawradaasi ingiriisku dagaal xooggan buu la galay wuxuu keenay 50,000 oo askariyo ingiriis ah oo madaafiicdoodii iyo ciidankii badda iyo dayuuradahoodii iyo wuxoodaba wataa la keenay dabeetana waxaa la xaaqay falastiintii shacabka ahayd ee mudaharaadiisa ku kacsanayd waxaa la dedejiyey tababaradii yuhuudda la siin jiray waxaa loo tababaray yuhuudda ciidan cusub oo la yidhaahdo special night squad la yidhaahdo ciidanka habeenkii dagaalama general Wingate nin la yidhaahdo la keeno tababarka bixinaya waxaa dadkii in la dejiyana loo adeegsaday boqorradii carbeed ee meelahan uu ku gumaysanayay kuwii baa u yimi waxaa la yidhi falastiintii dega arrinkii wuu degi waayey mu'tamar baa london lagu qabtay mu'tamarka london lagu qabtay go'aan buu soo saaray ingiriisku uu leeyahay kow waxaad dalbateen oo dhan waa idinka aqbalay 10 sannadood gudahoodna xorriyad baa laga gaarsiinaya 10 sano gudahood falastiin xor bay noqonaysaa xorriyad baa idin siinaya heshiiskaas markii ay carabi soo qaadatay oo dadkiina degay 1939 na dagaalkii labaad ee dunida bilaabmay dabeetana ingiriis wixiiba waa iska tuuray wararkaa markay maqleen nimankii sahyuuniyadda ahaa tababaradoodii ciidan dhiskoodii diyaargarowgoodii wixii bay tiro badiyeen ciidan bay dhisteen ka badan ciidamada wadannada carbeed oo dhan marka la isku daro waayo ciidamada waddannadan carbeed ee ingiriisku gumaysanayay masar baa ugu badnayd oo ciidan yaroo 10,000 joogay iyaguna dagaalkii koowaad yuhuudi 60,000 bay ku galeen ragga badna waxay leeyihiin ilaa 160,000 bay gaarsiiyeen ciidankooda yuhuudi waxay samaysatay markaa ciidan aad u tiro badan intii uu ingiriisku meesha joogay
ingiriisi laftiisa markay heshiisyada ka maqmaqleen weerar bay ku qaadeen ilaa 700 oo ingiriis ay dileen ingiriisyadoo sidaa loo leynayo iska aamusnaan wax badan waa waqtiyada ay soo bixi doonto waraqahana dadka ku aragtaan Shamir oo irhaabi la daydeeya ama Golda Meir oo irhaabi la daydeeya ama Ben Gurion oo irhaabi waraqahana dadka ku aragtaa waqti uu soo saari doono 1948 markii la gaadhayna dagaalkii uu dhamaaday 1945 United Nations iyo wax cusub la sameeyay ingiriiska tamartiisa hoos bay u dhacday Israa'iiliintii ciidankoodii waxoodii bay dhisteen ilaa waqtigaa laakiin laga soo bilaabo 1920 ilaa 48 laga gaadhay Israa'iil waxay dhul qabsatay oo dhan uu ahaa 6%. hada waa dhulka ay gacantooda ku jiro dhan 6% weeyaan ingiriisku markaas wuxuu yiri 1947 wuxuu yiri kayska Falastiin wuu ugu cuslaaday United Nations kan geeyay intii uu bala qaaday inuu nimanka siinayo dawladnimo wixii baa intuu ka baxay ay wuxuu yiri kayska United Nations kan geeyay United Nations kana markaa baarqab cusub oo Mareykan la yiraahdo ka dhex doonayay dawladaha Carabeed intooda ugu badan waa la gumaystaayo kaba ma mid ah dawladaha xorta ah United Nations ku jira dawladooda waa 6 dawladood oo Yurub u badan iyo oga Latin America iyo meelahaas jaaba muslimba kuma jira laga yaabaa waa midhan markii United Nations ka la geeyayna nimankii Sahyuuniyiinta lobbying bay bilaabeen inay qaar la alushaan dawladaha badkood soo la alusheen badna Truman oo ahaa masiixi Sahyuuniga ayaa u hanjabay go'aankii ka soo baxay wuxuu noqday go'aanka taqsiimka loo yaqaano in Falastiin loo qaybiyo Yuhuud iyo Falastiin markan la qaybinayo maxay kala haystaan 6% Yuhuud baa haysata 4% Falastiin baa haysata United Nations wuxuu yiri markaa oo Mareykan hogaaminayo 5% Yuhuud hal la siiyo 5% Carabta hal la siiyo oo 4% bay degan yihiin sidee loo siinayaa 5% may 5% waliba 5% ka hal loogu daro xeebta iyo saxaaraha biyaha leh وإسلام بوحو قال سحارها بئر الصبع يا قاكذا سحارة النقب إني بالبيوت هاي دولكا iyo xeerta dhulaha la siiyo 55 oo dadkii deegaanana yaa wuxuu macnu noqonayaa la xaaqo laba qorin dadka deegaan xagga qabanaya ila boqolkiiba 50 bay degan yihiin arabti ama falastiinti shacabkii markaas ay diideen qaybintaas qaybinta markay diideen yahuudi dagaal bay bilowday عربنا ويساسو ورسطو دغال باي بلوday dagaalkaasi yahuuda ay bilowday wuxuu ku gabagaboobay awalba 5 baa la siiyay boqolkiiba 87 inay qabsadaan 22 inay Falastiinta u soo hadho kadib markii ay 500 in ka badan qaar 560 bay sheegaan qaar 530 bay sheegaan aduu 500 in ka badan oo magaalo iyo tuulo oo Carabi degareed bay baabi'iyeen 500 oo magaalo in ka badan ayaa la baabi'iyay 9 madbaxo ayay sameeyeen masaakir sida la sheegay Arab waxa ku soo hadhay markaa Gaza oo 1% Gazadana maqlaysa waxaan u maleynayaa inay tahay 4 magaalo iyo 6 xero qaxoontiyo la isku daraa malaayinka la ilaa qitaac Gaza Gaza oo 1% ka ah wadanka iyo dafal gharbiyo 19% ah intaas ku soo hadhay oo haziimada intan leegay siday u dhacday waxa u dhacday English 1946 ayuu xusameeyay wax la ilaa jaamaca al-Arabiya oo kamid yahay المندوب السامي البريطاني جامعة العربية بكتيرة عرفت صدح عيدا بيسوا أوروريانا دقالوا قلا كوحي وحي كوح مجاهدين والجهاد المقدس ونين عبد القادر الحسيني ووطه
oo iyagu dad is-ururiyo gaarkooda oo inay dagaalamaan ku talagalay qadiyaduna dhab ka tahay qaybna wuxuu ahaa markii la yidhi falastiin waxa qaadatay yuhuud baa la siiyey mutatawiciintii muslimiinta ee meelaha isaga timid kuwaasi si aanay dagaalka u gelin dowladaha carbeed waxay yidhahdeen xeriyaynu u samaynaynaa waa tababaraynaa innagaa hubisayna halka soo gala dagaalkaa laga reebayay qaybta saddexaadna qaybta mutatawiciinta qisaan idinka sheega uu subaaci manduub akhwaan almuslimiin fi suuriya subaaci wadu sheegay subaaci baa wuxuu yidhi kuwii maamulayay mid ka mid ay wada hadleen markaasu wuxuu ku yidhi ciidankan inaad hubsiso wuxuu yidhi war subaaci adigu miyaad waalanta waa maxay meeshanaad muhandisiinta iyo injineerada iyo ataba waxaanaad noo keentay waa maxay war waxoogaa baltajiya baanu rabnay inaad keento meesha aanu gelino hadday madhaana dee balaayayna dhaaftay bay ahayd haddii dee ay meesha qabsadaanna dee waxbaa inoo soo kordheen waa maxay yacni niman raba in wax la xoreeyaba may ahayn qaybta saddexaad ma taqaanaa waa ciidamadii carbeed ciidamada carbeed yaa madax looga dhigay waxaa madax looga dhigay inuu haysto nin ingiriis ah bal aduu qiyaas ingiriis baa falastiin haysto aan weli kicin carab baa rabta inay la dagaalanto ciidanka la dagaalamaya magac ahaan waxaa ku qoran cabdillaahi bnu xuseyn odaygii shariif xuseen ee la eriyey inankiisii oo nahru urdun loo gooyey waa kan hadda jooga awowgiisii labaad malaha cabdillaahigaas ayaa ah ciidamada carbeed oo dhan ninka ku ay hoos yimaadaan isaga ciidankiisa ayaa haysta 1939 ilaa 56 sarkaal ingiriis ah ciidamada urdun haystay sarkaal ingiriis oo la yidhaahdo sir john bobet gulub ayaa ciidamada ingiriis oo dhan maamulayay ingiriisku markaa wuxuu ku yidhi ciidamadii ninka kale ingiriis xukumayay meeshaan ka urursanaya waan ka baxayaa dagaalka gasheenay hal lay sugo ilaa 15 May 1948 maalintaasaa ka baxaya maalintu wuu qabtay maalintii ka horreysay ayay israa'iil dowladnimadeedaba ku dhawaaqay 14 ka ka tegayaa buu yidhi 14 mayba dowlad baa dhisan waddankii wixii joogay oo dhanna way soo xaaqeen idan carabtan gelistooda galeen in yar oo wadaado iyo daacad iyo waxa ahaa mooyaane ninkaan ii sheegay cabdilqaadir xuseen ciidamadiisu say u dagaalamayeen baa hubka ka go-ay dabeetana bay wuxuu tegay dimashq nimankii maamulka ayuu tago u yidhi war rasaastii ba iga go-dee rasaasi siiya waa lagu qosqoslay wuu soo noqday baytulmaqdis buu yidhi waxba waa loo diiday dagaalku sidiisii ku galay isagu wuu ku shahaado qaatay ciidankiisiina markay rasaas ka go-daa la jebiyey dowlad carbeed oo u diidan ciidan dagaalamay inay hubsiiyeen inay rasaas siiyaan run maaha 1948 dagaalkaasi wuxuu ku gabagaboobay dowladdii israa'iil oo lagu dhawaaqo ciidamadii carbeed oo jaba falastiinta oo 500 oo magaalo iyo tuulo ka badan laga saaro xeryo qaxoontiyo la isugu geeyo waddanka 8% oo israa'iil gacanta ay ku dhigto inta yare Gaza iyo dafal qarbiya oo midna urdun ay haysato midna masar ay haysato mooyaane dhulka intiisa kale oo dhan iyaga qaatay waxaan u malaynayaa labadii dooro horeyna gaadhnay 48 wixii ka dambeeyey dowladda israa'iiliya waxay samaysay iyo duwalul qarbiya waxay sameeyeen waa inoo harsan yihiin laakiin maanta halkaasaynu iskaga daynaynaa waqtigii salaaday gaadhay danta aan deriskan ka lahaayoo dhammi waa hal qayba inaan tilmaamo oo ah falastiin ama reer Gaza yay ishayaana ay la dagaalamayaan ma yahuud maya waxay la dagaalamayaan yahuud oo dhan maaha ee waxay la dagaalamayaan sahyuuniyiin iyo reer galbeed oo duwalka ugu waaweynay ka tirsan yihiin iyo boqorrada carbeed oo la isku daro